السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت wanaagsan. waxaan maanta idin hayaa fursad dahabi ah, fursad aad qaali u ah oo adoo gurigaaga jooga sariirtaada jiifa aad $500 aad bil walba qaadan doonto isla markaana socon doona 6 bilood. weligaa maada maqal. waxaa intaa kuu sii dheer in barnaamijkaas maadaama online uu yahay adoo sariirtaada jiifana aad ka faa'iideysanaysid in internetka aad isticmaalaysid lacagteedana lagugu dari doono haddii aad ku guuleysatid. haddaba si barnaamijkaas dabiya dacal min bilow ilaa iyo zed aad uga faa'iideysatid muuqaalkan daawo dhammaadka markii la gaarana waxaan ku tusi doonaa ama ku tilmaami doonaa ama kugu hagi doonaa halka aad barnaamijkaas ka bilaabi doonto. taasi waa mid labaad. barnaamijka si aad habka loo apply gareynayo waa fellowship barnaamijku sida loo apply gareynayo tilaabaha la qaadayo habka looga faa'iideysanayo waxa laga rabo si aad u fahantid muuqaalka daawo min bilow ilaa dhammaad. waxaana ku ballan qaadayaa haddii aad muuqaalka dhammaystiratid barnaamijkaasna aad ku guuleysatid in bil kasta $500 aad heli doonto internetka aad isticmaali doonto lacagtiisana lagu siin doono. weligaa maada maqal. waana hubaa fursadaha noocaas ah in lagaa qarin jiray balse ana ilaahay dartii kuugu sheegaya. sidaa daraadeed fursadaas dahabiga ah dayacin. waa mid labaad. haddii muuqaalka aad daawatid isla markaana barnaamijka aad ka faa'iideysan kari weydid oo aad fahmi weydid habka loo apply gareynaya ama aad ka baqdid inaad wax khaladid nala soo xiriir annaga oo dhinaca fariimaha nagala soo xiriir. waan kuu jawaabeynaa 24 hours waan kuu jawaabeynaa waana kaa saacideynaa. haddaba waxaa noo balan ah inaad muuqaalka daawato barnaamijkaana aad ka faa'iideysato isla markaana si barnaamijyada noocan ah ee fursadaha qaaliga ah aadan u seegin ama aysan kuu dhaafin channelka subscribe dheh, gambaleelka furo. akhyaarta saaxiibada ah ee aad jeceshahay fursadaha inay ka faa'iideystaan ama fursadaha noocan ah raadin jirayna la wadaag si ay iyaguna uga faa'iideystaan. warkayaanan ku daalinne muuqaalka aan daawano. halkan ayuu ku keenayaa. haddaba halkan markuu ku keeno barnaamijka ama fellowshipka titlekiisu waa sida halkan idinkaga muuqata. waxaa xusid mudan barnaamijkan ama fellowshipkan dadka hela waxaa la siin doonaa lacagtaas meeshaad uga jeedaan $500 ayuu qofku bishii walbaba qaadan doonaa ilaahay idinkii. haddaba haddii fikrad guud aan muxuu ahaayey ka fiirino barnaamijka horta waqtigu ku egyahay marka koowaad waa 4 August. maanta bishu waad garanaysaan inta ay tahay. marka bisha August ee 8aad 4teeda ayuu ku egyahay. marka waxaad fursad u haysataa inta ka horeysa inaad barnaamijkan waxyaalihii dokumentiyada lagaga baahnaa habkii aad u qori lahayd waxyaalihii aad ka eegi lahayd ee lagaa weydiiyay adoo ku salaynaya inaad muxuu ahaayey qortidoo sii diyaarisid. taasi waa taas. haddaba halkan waxaa lagu sharxayaa barnaamijkan iyo waqtiguu soo bilowday iyo shirkadda sameynaysa iyo waxa ay tahay bay somehow yara tataabanayaan. balse waxa aadka inoo quseeyaa wuxuu yahay dhowr arrimood inaan fahano. midda koowaad barnaamijkan Africa loogu talagalay. Africa markii lasii eegana waxaa kusii jira West iyo East iyo waxa la yiraahdo Central Africa intaba oo taasoo ay kulansanayso Soomaaliya inay ku jirto. waayo Soomaaliya waxay ku taallaa East Africa sad garanaysaanba. taa markaan ka imaado waxaa kaloo meesha ku jira waxyaalaha requirementska waxyaalaha laga la rabo qofkan ardayga ah ama aqoon-yahanka ah ama ciidan muxuu ahay researcherka ee rabo barnaamijkan inay ka faa'iideysato waxyaalaha looga baahan yahay. markaan eegno ta koowaad marka haddaba arrinka koowaad wuxuu yahay in marka hore horta arday inaad tahay sidoo kalena aad tahay sidoo kale qof muxuu ahay professional ah oo dee shaqooyinka rasmiga ah xafiisyada wixii la mid ah ka shaqeeya inaad tahay. macnaha waa in midkood aad tahay ama arday aad tahay ama qof professional u shaqeeyo shaqo rasmi ah ka shaqeeya aad tahay ama sidoo kale inaad tahay qof activist ah oo dhaqdhaqaaq badan oo bulshada wax qabad u leh oo olayaasha iyo waxyaalaha bulshada run ahaantii faa'iido u leh qayb ah ka tahay. ama inaad tahay sidoo kale creative inaad tahay qof hal abuur leh oo fikrado shaqeynayo macquul oo ummadda iyo bulshada iyo caalamka ka gadmaya
qof soo bandhiga ama haya ama sameeya ama ku fikira inaad tahay ama hore u hirgeliyey, ama sidoo kale inaad tahay qof researcher ah oo ah qof baara ah inaad tahay. waa qodobka koowaad, waa requirementska ama shuruudda koowaad. shuruudda labaad waxay tahay dadka la rabo barnaamijkan ka qaybgeli kara waxaa weeye sidoo kale inuu yahay qof khibrad u leh ololaha ama hanaan u socodka ama hagaajinta. sidoo kale inaad tahay dadka tiknolojiyadda madaniga ah wax ka yaqaana ama khibradda u leh inaad tahay. sidoo kale waxaan lagu soo celiyey baare inaad tahay. sidoo kale inaad tahay dadka sheekooyinka hindisa ama sameeya ama ikhtiraca inaad tahay oo sheekooyinka noocay doonaan ha ahaadaan. sidoo kale inaad tahay qof siyaasadda wax ka fahansan, kama dambaysna qof muxuu ahaayey naqshadaynta iyo waxyaalaha la xiriira graphicationka wax ka yaqaan inaad tahay. taasi waa qodobka labaad. qodobka saddexaad wuxuu yahay runtii la rabo inaad aad uga fiirsatay iyaduna oo waxyaalaha laga rabo ka mid ama qofka rabo inuu ka faa'iideysto barnaamijka inuu yahay shakhsigaasi qof dadkan muxuu ahaayey iskood u shaqaysta ama qof ka tirsan muxuu ahaayey groupka wuxuu noqon karaa dadka u ololeeya nabadda, u ololeeya waxaa la yidhahdaa cimilada, u ololeeya iska dhexgalka bulshada iyo wixii la midka ama inaad tahay qof sidoo kale bulshada matala inaad tahay. waa qodobka saddexaad ee shuruudda shuruudda u dambeysa qasabka iyadana waxay tahay in qofka barnaamijkan ka faa'iideysanayo marka koowaad inuu Afrika ka soo jeedo, gaar ahaan East, West iyo Central Africa inuu yahay, taasoo si cad kugu muujinaysa in haddii muwaadin Soomaaliyeed aad tahay inaad ka faa'iideysan inaad muxuu ahay barnaamijkan si fudud aad uga faa'iideysan karto, isla markaana aad mudan tahayba inaad ka faa'iideysato. halkan haddaan uga gudubno waxyaalaha laga rabo, waxaan u gudbaynaa faa'iidooyinka aad ka helaysid. faa'iidooyinka koowaad waxay tahay kow in contributionkaagu noqon doono mid toos barnaamijka aad ugu bandhigtid oo afkaartaada iyo aragtidaada iyo hal abuurkaagu mid toos barnaamijka loo tixgelinayo. run ahaantii siyaasadda iyo mashruuca barnaamijkan uu ku salaysan yahay aad u bandhigi kartid. midda labaad waxay tahay midda kale waxay tahay inaad heli doontid hagid asbuucla taasoo ku salaysan barnaamijka, iyo sidoo kale inaad waxbarashada iyo aqoonta la xiriirta fellowshipkan inaad muxuu ahay sessionadiisa aad baran doonto iyagoo dhammaystiran. sidoo kale wuxuu barnaamijkani sidoo kale aad uga faa'iideysan doontaa platformyada in lagu soo muxuu ahaayey habka loo soo bandhigo aad muxuu ahaayey ku baran doontid. sidoo kale inaad heli doontid toolkitskii waxyaalihii uu ka koobnaa barnaamijka practicalka loo sameynayay inaad heli doontid. sidoo kale blogiska iyo campaigniska, ololayaasha iyo gameska habka loo sameeyo, habka looga faa'iideystiyo, habka looga shaqaysiyo, lacagaha looga sameeyo inaad muxuu ahaayey baran doontid. sidoo kale waxaad muxuu ahaayey ka faa'iidi doontaa sidoo kale inuu barnaamijkan noqon doono mid isla bulshadii aad uga faa'iideysato, aqoontii aad ka soo heshay ay noqon doonto mid isla bulshadii aad ka soo jeeday ka gadmi doonta. ta u dambeysana waxay tahay inaad awood u yeelatid, inaad access u yeelatid, bimacnaa inaad heshid koritaankii bulsho gaadhid oo aad saameyn ku yeelatid, isla markaana aad la falgashid dadka aqoonta leh educatorska ee barnaamijka ka qayb qaadanaya, isla markaana aqoontooda iyo aragtidooda iyo khibradooda aad muxuu ahaayey ka faa'iideysid. sidoo kalena adiguna aad soo bandhigi kartid. intaa kadib markaan fahanay faa'iidooyinka aan ka heli doono barnaamijka, waxaan u gudbaynaa detailska ama faahfaahinta barnaamijka. horta marka koowaad barnaamijku wuxuu socon doonaa 6 bilood, saa ujeedaanba 6 bilood buu socon doonaa. waa midda koowaad. midda labaad waxay tahay muxuu ahaayey barnaamijku sidoo kale uu sii hoos tagta ayaa waxay tahay time commitmentigu inuu noqon doono asbuuci kastaba 4 maalmood in barnaamijka aad ka qayb qaadatid. horta barnaamijku waa hab muxuu ahaayey online ama hab muxuu ahaayey fogaan taasoo iyaduna dhici karto in eventska ama dhacdooyinka barnaamijka la xiriira in dadkan barnaamijka quseeya ku soo bixi doona ay dhici karto inay isku yimaadaan oo meel hal goob oo hal dal ay isugu iman karaan. midda u dambaysa waa maxay? in qofkan barnaamijka ka qayb qaadanaya loo ogolaan doono $500 oo barnaamijka uu kaga qayb qaadanaya, taasoo u sii dheer tahay in uu heli doono internetkii iyo wixii uu u baahnaa ee barnaamijkan accesska u siin lahaa, bimacnaa uu kaga qayb qaadan lahaa. taasoo ku cadaynaysa in marka koowaad $500 oo nadiif aad heli doontid, ayna ku sii dheeraan doonto waxyaalihii la xiriiray waxyaalihii kuu fudayn lahaa inaad barnaamijka hab online uga qayb qaadatid. taasina waa maxay? waa
faahfaahinta barnaamijka. Intaa kadib waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid barnaamijku sidee baan muxuu ahaayey u apply garayn karaa. Mushkilad ma laha, linkiga markaad kusoo dhufatay halkan markaad ka dhamaatid ayaa for more information hoosteeda ayaa waxaa ku qoran visit the official page baa ku qoran, iyadaad click siinaysaa. Hagaag markii aad ku dhufatay halkan ayuu ku keenay, halkan markuu ku keenay waa formkii, waa barnaamijkii, waa faahfaahintii intaas hore. waad sii soconaysaa, hoos baad u sii soconaysaa, halkan waa faahfaahintii barnaamijka. haddii martaqaanaa aad u baahan tahay sharaxaad dheeraad ah waad eegi kartaa. halkana sidoo kale waa iyaduna faahfaahin la xiriirta barnaamijka iyo qofka eventiga markuu ka qayb qaadanayo luqadda u baahan yahay, waxyaalaha la rabo inuu sii fahmo. sidoo kale halkan waxaa ku qoran waxa laga eegi doono barnaamijka ee la rabo qofkan ka qayb qaadanayo la rabo inuu iska eego, ama asaga laftigiisa laga eegi doono la rabo inuu awood u yeesho. waayo haddii aad faransiiska aqoon, ingiliishkana aad aqoon, way adkaanaysaa barnaamijka inaad ka qayb qaadatid. intaas kadib waxaa loo sii gudbay grantiskii iyo waxyaalihii la xiriiray xaggii kharashka iyo wixii la midka ahaa. iyaduna iyadoo faahfaahina waa tan aan marno inaan kusii dheeraano. qofkii u baahan isagaa akhrisanaya, isagaa si fiican uga dhergaya. sidoo kale qaybtana waa maxay? waa qaybta laga sii eegayo grantiska iyo wixii la midka ahaa ee qofka uu rabo in muxuu ahaaye laga eego marka lacagta la siinayo iyo markii barnaamijku ka qayb qaadanayo. intaa kadib qaybtii designinka geeman baa la xiriira oo qaybta si fiican aad u arki doontaan markaad hoos aan sii tagno. geemkaasi waa geemam designing iyo u baahan qofku inuu si fiican u yaqaano. marka qaybaha uu hoos tagayo waa intan, waa phototape cardka ama webka iyo wixii la yidhahda fiirka ama AR-ka oo kulligood ah qaybaha gameska. marka dadka caadka u yaqaana ayaa yaqaana. intana iyada sii hoos tagaysaa, waa qofka u baahan isagaa insha allahu tacaala sii fiirin doona. ma rabno inaan kusii dheeraano. sidoo kale geemamka laftigooda lagu sii kala qaadaya, kasii soco. halkan waa maxay? waxyaalaha aad heli doontid markii barnaamijkaas aad muxuu ahaay ka qayb qaadatid. iyaduna waa kuwana, waa intii marka dhowta aan soo sheegaynay ayaad muxuu ahaay ka qayb qaadan kartaa. habka loo cidda muxuu ahaay ka qayb qaadan karta barnaamijkana horaan u sheegnay, oo iyaduna mar labaad baa lagu soo celiyey. marka waad sii dhuuxi kartaa haddaad u baahan tahay faahfaahin dheeraada. sii soco. allahumma mustacaan. inta barnaamijku uu soconayo iyadana horaan usoo aragnay, waa kuwana iyo grantskii qofka uu helay, lacagtii uu helayay, ama waxaa la yidhaahdo lacagtii la siin lahaa. intaa kadib habkii loo ablay garaynayay habka on weye, halkan aan kasii gelayna. marka tan waa foomkii qaybtiisa koowaad oo la raba barnaamijka inaad si fiican usii dhuxdid. hadda marka waxaan ku dhufanayaa isla foomkii la buuxinayay. foomka markaan ku dhufano halkanuuna keenay. halkan markuuna keeno, marka koowaad waxaad gelin doontaa adiga emailkaaga, waa meesha ugu horeysa faahfaahinta lagu sheegaya. halkan waa meesha emailka la gelinayay. emailkaagii haddii gmail aad isticmaalaysa ama google chrome, automatic wuxuu usoo qabsanayaa gmailkii aad chrome ka isticmaalaysay. marka haddii emailkaagii saxda yahayna waad u daynaysaa, hadduusan ahaynna kii saxda ahaa waa inta switch account intaad tiraahdid ayaad soo gashanaysaa. intaa kadib halkan waxaad ku qoraysaa magacaaga oo dhammaystiran. tusaale Ahmed Jama Gedi oo kale, just waa example, magacayga ma aha, just like waa magac wanaag iska alifay. marka adiga magacaaga whatever magacaagaad gashanaysaa. marka gelisid kadibna waxaad u gudbaysaa emailkii rasmiga ah ee aad lahayd ee rabtay macluumaadkan in lagu soo diro ayaad ku qoraysaa. tusaale waxaad dhahaysaa maadaama ninka Ahmed aan u bixinay xaalada Ahmed oo kale 2025 baan ka soo qaadaynaa inuu yahay emailkiisu waa just waa tusaale @gmail.com baad dhahaysaa, waadna iska hubinaysaa. intaa kadib waxaad gelinaysaa lambarkaagaad gelinaysaa. qasabna ma aha inaad Soomaaliya joogto, qasab ma aha, laakiin inaad Soomaali tahay waa markaan ka hadlaynaa muwaadinimada weeye. adoo Kenya jooga ama Uganda jooga ama Yurubta jooga ayaad ka qayb qaadan kartaa. waayo laguma oranin dalka aad joogto waa inuu Afrika yahay, ee waxaa lagu yiri waa inaad ka soo jeedaa. marka haddii baasaboorkaaga waxaaga xogtaada aad haysatid adoo Ruushka joogaad apply garayn kartaa. marka kadibna taleefankii baad gashanaysaa. halkan taleefankii baad gelinaysaa adoo balaasta ka horreysiinaya. kadibna 252 ama 251 haddii Ethiopia aad joogtid, ama 254 haddaad Kenya joogtid. kadibna lambarkii baad raacinaysaa.
intaa kadib waxaad ku sii daraysaa deegaanka meesha aad ka sii joogtay country of resident waa dalkii aad joogtay waana tii hadda aan idiin sheegay bay caddaynaysaa marka dalka aad joogtid ayaad ku qoraysaa tusaale haddaad Soomaaliya joogto Soomaaliyaad oranaysaa haddii aad joogtid Kenya oo kale Kenyaad oranaysaa haddii aad joogtid Allahu musta'aan Qatar oo kale Qatar baa leedahay ayankan aad meesha aad joogtid ku qoraysaa intaa kadib hoos baad u sii degaysaa waxaa lagu weydiiyey nooca barnaamij ee aad ka qayb qaadanaysa marka barnaamijkani marka hore idin ma sheegin sorry saddex qaybood weeye saddexda qaybood marka waa in midda adiga munaasabka kugu ah ama ku haboon waa inaad ka doorataa midda kood maxay tahay waxa la yiraahdaa francophone oo ah community engagement faahfaahinta aad arki doona insha Allah taala ama aad baaran doona waa ta koobaad waa hadii aad ku haboon tahay talabaad waa maxay grant and growth waxyaalaha lacagaha kharashaadka iyo sida loo kobciyo waa qof ganacsiga ku wanaagsan hadaa tahay weeye ayadana taas aad dooranaysaa waa hadii aad ku haboon tahay maya hadii labada hore aad ku haboonayn oo aad ku haboon tahay waxa la yiraahdaa game designing kana waa dooran kartaa dadka mataqaana gameka lacagaha ka sameeya online-ka ugu sameeya muuqaalada ka sameeya lacagaha ka sameeya hadaa tahayna ama graphication-ka ku wanaagsan kana kugu haboonay kana dooranaysaa marka ayankan adoo saddexda qaybood kii kugu haboonaada ayaad ayro giibana ka dooranaysaa inta kadib next ayaad leedahay next markaad tiraadid halkan ayuu ku keenayaa halkan markuu ku keeno intiiba ku sharxayaa marka intiiba ku sharxayaa qaybihiiba ku sheegayaa kadibna waa ishaad marinaysaa si fiican baad isaga hubinaysaa kadib markaad fahantina next ayaad leedahay oo sii soco ah markaad sii socotid Allahu musta'aan wali faahfaahintii buu ku wada hababkii wixii ay ka ahayd iyo ujeedka laga leeyahay Allahu musta'aan programku noocu yahay dadka muxuu ay loogu talagalay fursadaha ku jira meesha habka uu dadka oo la xiriiraysid waxyaalaha la rabo inaad ku haboon tahay markii barnaamijyada qayb aad dooratay waayo mid kasto barnaamijyada kamid ah skillskeedii waa inaad leedahay marka mid dooratidba waa inaad skillkii ku haboona aad u sii diyaar garowdo qof yaqaanay inaad tahay oo hadhowtadii aan ku ciiboobin waxay ahaataba marka intaas faahantid kadibna next ayaad leedahay next markaad tiraahdid waad sii soconaysaa wali faahfaahintii ayaa qayb sare lagu sii sheegay kadibna qaybtana tagaysaa qaybahani waa maxay waa qaybaha la rabo inaad xogta saxda ah gelisid tusaale qaybtan waxaa lagu weydiiyey adoo isticmaalaya lagu yiri waxaad sheegaysaa adoo meeshan buuxinaya ayaa waxaad ka hadlaysaa baa lagu yiri barnaamijkan sababta aad uga qayb qaadanaysid sababta aad u apply gareynaysid maxay tahay marka aad isugu sii dheerayn inkastoo tirada kelmadaha ay ka koobnaanayaan sida caadiga ah waa la sheegi jiray laakiin lama sheegin halkan laguma sheegin marka adaa waxa laga rabaa inaad kelmadaha aad isticmaalaysid aad soo koobtid laakiin exactly waa inaad abaartaa nuxurkii barnaamijka adoo ciwaankii guud ka duulaya intaas kadib waxaa sidoo kale si kooban u sheegaysaa khibradahaaga la xiriira barnaamijkan aad apply gareynaysid tan marka waa lagu sheegay waxay ka koobnaan doontaa 150 muxuu ahaayay kelmadood ama eray waa inaysan ka badanin haddii aad bad iska gashid oo intaad ChatGPT meela iska gashid aad caalam kala gashid dad yaqaan waxaad muxuu ahaayay la aadaysid marka waxaa laga rabaa erayo kooban oo nuxur leh haddana soo koobaya khibradahaaga la xiriira barnaamijkan oo waa maxay waxay kulansanayaan aqoontaada heerka jaamacadeed ama waxbarasho aad gaadhay haddii aad volunteer ku soo shaqeysay haddii khibrad shaqo aad leedahay iyo wixii kale ee la xiriira barnaamijkii adoo aad aaminsan tahay inaad ku wanaagsan tahay intaa kadib qaybta sideedaad waxaa lagu yiri isla barnaamijkii qodobadii barnaamijka saddexda qaybood mid kamid ahaa ayaa la soo qaatay waxaa lagu yiri marka kala dooro ma waxaad tahay haddii aad barnaamijkan francophone aad dooratay community engagement applicants hadaad dooratay waxaa lagu yiri ma ku haboon tahay luqadda ingiliishka iyo faransiiska inaad wax ku qortid oo qof ku hadli kara ma tahay haddii haa iyo may ay tahay tii kugu haboon ayaad ka dooranaysaa haddii marka ay yes tahayna yes baad dhahaysaa haddii no ay tahayna no baad dhahaysaa marka no iyo yes labada waa dooranay intaa kadib qaybta labaad baa loo gudbay qaybtii barnaamijka iyaduna muxuu ahaay qodobkii labaad saddexaad ahaa laakiin saddexda qaybood kamid ah oo waa maxay game design applicants hadaa dooratay baa lagu yiri waxaad sheegtaa baa lagu yiri link Provolio oo ah sample game ah taqaanid halkan noogu soo dhig baa lagu yiri marka linkiga adaa laga rabaa meeshaad ka keeni doontid sidoo kale haddii kii kale ee saddexaad aad dooratay ee ahaa grants and growth applicants hadaa tahayna waxaa lagu sidoo kale waxaad noo soo bandhigtaa oo nala wadaagtaa linki aad ku soo qortay sample kooban oo mashruuc ama barnaamijkaas aad kaga qayb qaadanaysay barnaamijkan si lacagta lagu siiyo
adaa yaqaan marka sidaad samaynaysid isagana halkaasaad kusoo qoraysaa kelmadihiina laguma soo koobina adaa lagaa rabaa inaad soo koobtid intaa kadib qaybtan muxuu ahaay 11aad iyaduna waxay ka kooban tahay 100 muxuu ahaay eray waxayna ku weydiinaysaa waxaa su'aasha 11aad in lagu weydiinaya wax ay kaaga dhigan tahay waxaan ila digitalka in lagu shaqeeyo oo laga faa'iideysto waxay kaaga dhigan tahay marka iyadana kelimada kooban baad oga jawaabaysaa 100 eray baan lagu siiyay marka iyadana waad soo koobaysaa su'aasha 12aad waxay tahay waxaad qeexdaa baa lagu yiri waxaad qeexdaa muxuu ahaayay bulshada haddii aad la shaqaysay weeye adoo qodobkii aad dooratay ka duulaya weeye mushkilad idin soo waajahday oo aad xaliseen habkii aad muxuu ahaayay u xaliseen iyo wixii aad ka baratay ayaad ka hadlaysaa adoo ka duulaya mawduucii ama qodobkii aad dooratay iyadana 200 oo eray iyo ka badan baa lagu yiri inta kadib su'aasha 13aad waxaa lagu yiri iyadana sidoo kale waxaad noo sheegtaa baa lagu yiri haddii ay jiraan group ama naadi aad la shaqaysay nooc doonaba ha ahaado ama dumar ha ahaado base u ah ama rag ha ahaado ayankan ama ha isku jiraanoo naadi dee labada qayb ay ka tirsan ha ahaadaane muxuu ahaayay nooxus isla markaana waxaad noo sheegaysaa baa lagu yiri waxa muxuu ahaay bulshada aad u qabataan iyo waxa dee ay qabato adoo taana tixgelinaya ayaad sameynaysaa marka waxay noqon kartaa baa lagu yiri inaad muxuu ahaayay dhinaca waxa leedahay fataaga ama spaceska hadii ku tacaluqdo hadii artska ku tacaluqdo hadii agaasinka muxuu ahaayay naadiyada ay la xiriirtay iyo wixii lamid akademiyada iyo wixii lamid hadii waxay doontaa ha ahaatee iyadana hadii ay tahay ka hadal baa lagu yiri adigoo erayada soo koobaya su'aasha 14aad ee ugu dambaysa waxay tahay waxaa lagu yiri waxaad maxay tahay baa lagu yiri ama sidee baad inaad uga qayb qaadato barnaamijkan fellowshipka ah nidaamka bii'iga ama deegaanka ah ee ballaaran adigoo tixgelinaya xuquuqda waxyaalaha digitalka ku samaysan marka aad barnaamijkan inta aad ka qayb qaadan iyo markii aad ka qayb qaadatid kadibba sidee baad muxuu ahaayay u jeclaan lahayd inaad uga qayb qaadatid taana waxaad ku salaynaysaa iyadana 200 oo eray kadibna nuxurka barnaamijka ayaad ku salaynaysaa inta kadib marka intaas aad soo dhamaysid ayaa waxaad keenaysaa CV-gaagii ayaad soo diyaarinaysaa PDF baadna ka soo dhigaysaa ma aha Word PDF baad ka soo dhigaysaa halkan ayaadna soo gelinaysaa click baad siinaysaa kadibna documentiga aad diyaarsatay PDF-ka ah ayaad soo gelinaysaa waa inuusan ka badan isaguna 100 megabyte waa inuusan ka badan inta kadib waxaa kaloo soo gelinaysaa baa lagu yiri dokumentiyo adigu caawinayo wixii aad ka hadashay aad dooratay awood ku siinayo si xaqiijinayo adiga kugu taageeraya hadii aad haysatid halkan soo gali maxay noqon karaan marka waxay noqon karaan khibradii aad sheegatay hadii aad naadi la shaqaysay ama hay'ad aad la shaqaysay ama adu shirkad aad leedahay oo aad muxuu ahaay cadeymo ka hayso halkan keen waxay kala noqon kartaa Allahu musta'an hadii aad jaamacad ka baxday oo kale ama master iyo wixii lamid aad haysatid iyadana shahaadadii baad soo gelinaysaa sidoo kale waxaad soo gelinaysaa hadii recommendationo meela iyo shirkado iyo hay'ado aad la shaqaysay ay jiraan ama cadeymo aad u haysatid recommendation laga siiyay oo hadda ka hor aad ka soo shaqayn jirtay iyagana waad soo gashan kartaa marka halkan waxaa loogu talagalay ani supporting documents aad leedahay way ku caawinayaan inaad muxuu ahaay halkan soo geliso marka waxay noqon kartaa qoraalay noqon kartaa sambala ah games bay noqon kartaa visuals bay noqon kartaa iyo wixii la midka ah ama wax qabad ah oo bulshada loo qabtay waxaan rajaynayaa barnaamijka inaad muxuu ahaay ka faa'iideen inta kadibna submit ayaad dhahaysaa saasuna kaaga tagayaa inta kadib si barnaamijka marka aan hadda idin sharxay aad uga faa'iideysataan linkiga koowaad ama fariinta koowaad ee commentiga linkiga ku jira ku dhufta markaad ku dhufatid tilaabooyinkii aan muuqaalka kugu soo sharxay mid u raac kadibna saa barnaamijka ku apply garee hana hilmaamina mar labaad iyo mar saddexaad channelka inaad subscribe tiraahdo gambaleelka inaad furato wixii su'aal aad qabtid dhinaca hoose aad nagula wadaagtid akhyaarta ahbaabta ehelka qaraabada aad jeceshahayna aad la wadaagtid muuqaalka si ay iyaguna uga faa'iideystaan haddaba barnaamijkan waxaan aad ugu rajo weynahay inaad ka faa'iideysan doontaan markastana waxaan u taaganahay inaan barnaamijyada dhalinyarada Soomaaliyeed faa'iidada u ah
ama ha ahaadaan scholarshibyada ama ha ahaadaan deeqaha waxbarashee dalka ama dibadda ama Yurub ama Latin America ama Canada ama Mareykanka ha ahaadaane inaan u soo gudbino haddii channelkayga aad fiirisidna waxa aan ka hadalno ee ugu badan 98% waxa weeye waa waxyaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ama muwaadinka Soomaaliyeed faa'iido u ah saadaraad waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan haddii marka channelkan aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii talo iyo tusaale ah dhinaca hoose ayaad nagula wadaagi kartaa aad baad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.